kusoo dhawaada asxaabta ku xidhan channelka Rafiiq Al-Macruuf. waxaan ka sheekeyn doonaa munaasabada bisha Shacbaan iyo soo dhaweynta bisha barakeysan ee Ramadaan. Allah naga dhigo kuwii alfaday Ramadaankana gaara. Allah naga yeelo kuwii laga aqbalay saalixaadka acmaasha. Su'aasha maanta ee channelka Rafiiq Al-Macruuf ee barnaamijkan uga hadli doono waa sabab loogu bixiyay bishan magaca Shacbaan. waa maxay munaasabadkii fadaaisha ee ku leedahay islaamka dhexdiisa? sabab bishan Shacbaan loo siiyay magaca Shacbaan. xilligii hore carabta magacyadooda waxay u lahaayeen munaasabadii waxyaabo gaar ah ay ku xusuustaan. bishan Shacbaan waxay ahayd bilihii carabta iska mamnuucaan, taas oo isku arki jireen ama ay ku midoobi jireen si ay daaqsinada iyo meelaha biyaha ay u wada wadaan. magacan bisha barakeysan ee Shacbaan waxaa loo bixiyay 412 miilaadiyada Cabdilkilaab bin Umar, awowgii shanaad ee Nabiga sallallahu alayhi wasallam xilligii uu talin jiray. sabab bishan loogu bixiyay magaca Shacbaan ayaa waxay tahay waxay kala reebaysaa Rajab iyo Ramadaan. taal ajrigeena waxaa loogu bixiyay Shacbaan waxay ahayd waa bil carabta iska iloobaan waxay dhibaatooyinka dhexdooda. fadaaisha ay leedahay bishan Shacbaan waxaa ka mid ah Nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu badan jiray soonka si uusan u soomi jirin bilihii hore oo kale. xadiis laga wariyay Caaisha radhiyallahu anha ayaa waxay leedahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam bil uu soonka dhameystiri jiray ma jirto ilaa bisha barakeysan ee Ramadaan maahe bil uu soonka uga badi jirin ma jirto tan Shacbaan. Ibn al-Qayyim al-Jawzi Allahu naxariista wuxuu leeyahay soonka la soomo bisha Shacbaan waxa uu weyneyn u yahay bisha Ramadaan, waana acmaasha la qabtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sar u qaado. Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri dadku waxay moog u qabaan bisha u dhaxaysa Rajab iyo Ramadaan oo ula jeeda Shacbaanka, waana bil acmaasha sare Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u qaado. anna waxaan jeclahay in acmaasheeda kor loo qaado. waxaan idinka rajaynaynaa subscribe inaad dhahdaan channelka.